madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa markii horeysay waxa uu sheegay isla markaana faahfaahin ka bixiyay arinta muddo kororsiga ee lagu eedeynayo isaga iyo saaxiibadiisa haatan haya talada maamulkaasi. Dani ayaa markii hore waxa uu ugu jawaabay xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeedo maamulkiisa, wuxuuna sheegay inay cabsi aynasan jirin isla markaana ay geliyaan dadka reer Puntland, isla markaana ay reer Puntland doonaynin in markaasi cabsi la geliyo. waxaanu sidoo kale tilmaamay madaxweynaha in badbaadin doono in markaasi ka badbadin ay sameynayaan siyaasiyiinta, isagoo qiil u sameeyey qorshaha muddo kororsiga, wuxuuna sheegay inay horey Puntland uga dhacday. hadalkan ayaa uga sii daraya muranka haatan ka taagan doorashooyinka Puntland oo ay walaac xoogan ka muujinayaan ururada siyaasadda oo sheegay inay mugdi badan ka dareemayaan. ururada siyaasadda Puntland ayaa dhankooda dhaqdhaqaaqyo ka wada Garowe, waxayna maalmo ka hor uga dhawaaqeen madal ay ku mideysan yihiin gudaha Puntland. siyaasiyiintan oo qayb ka ah madasha looga dhawaaqay Garowe ayaa waxay isugu jiraan kuwa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka iyo weliba maamulka Puntland.